filinkeenu saaxiibayaal waxa uu ku bilaabanayaa xaafadda Carston ee magaalada Boston iyadoo la tusayo kadib magaaladan waxay caan ku tahay dhaca bangiyada waayo saaxiibayaal sanad walba si joogto ah ayaa loo dhici jiray bangiyada magaaladan ama xaafadda og iyo kooxdiisuna waxay ahaayeen rag si aad iyo aad ugu fiican boobka iyo dhacitaanka bangiyada og waa maskaxda ka dambaysa isla markaa waxaan u jeednaa waardiyaha oo galaya bangigan isagoona lacag sida kadib marka uu soo galo bangigii waxa uu kasoo dabagalayaan saaxiibadii kadibna bangigiiba waa ay boobayaan waxaanay ku wada qabanayaan qorshaqaaliina waxay ku odhanayaan isdaqaajinina dib amar ayaa ay siinayaan waxaanay odhanayaan beerka dhulka dhiga kadib dadkii oo dhan waa ay wada jiifsanayaan waxaanay arkaynaa maamuladan oo ladha kaleeri ayaa la hadlaya waxaanu ku odhanayaa fur bangiga kadib waa ay furaysaa kadibna lacagtana ayaa ay tirsanayaan waana ay qaadanayaan marka aashita ayaa ay ku shubayaan meeshii waxaanay budburinayaan cadaymi kaarle ayaa lugta ku raaxaysaa alarmiga kadib waxay u yeedhaysaa ciidan kadib dhowgii saaxiibadu waxaanay dilayaan ninkan waxay moodayaan inuu isagu ugu yeedhay ciidan kadib kaarle ayaa arkaysa taatuuga qoorta ninkan kaga sawiran kadib kaarle waa ay xiftaysaa waxaanay arkaysa halkaa calaamad kadib waa ay qabanayaan kadib kaarle ayaa ay soo kaxaynayaan waxaanay la tegayaan bannaan wayna afduubanayaan kaarle markay afduubtaan waxay keenayaan xeebtan islamarkaana waa iskaga yaacayaan halkaa ayay ciidanku ugu imanayaan kaarle bangiga ayaa imanayaan kadib FBI bangigi marka ay la wareegto waxay eegaysaa cadaymiyo dhawaan ay waayaysa waxaa laba saaxiib ma jeclayn inaa filinka kaa dhex galo laakiin saaxiibada channelkan daawada ama subscribe gareeyaan adigu subscribe taabaadaad nala socotayna waad kumacsantay kadibna laygna taaba noona sii sheeg waxaanan u jeednaa maalintii labaad taliya aadam oo la hadlaya maamuladii bangiga ee kaleer waxaana ku odhanayaa wax cadayma ma haysa amba wax ma noo sheegaysa kaleer waa ay ka qaranaysaa taatuuga dhabarka kaga yaalay ay aragtay dhanka kale dhoogii saaxiibadii waa wada hadlayaan waxaana ku odhanaya jeen waxa uu sameeyey khalad mana ahayn maamulada inuu soo afduubta gaadhigeena na soo saaro waxaana uu tusaya kaar waxaana ku odhaya kaarhkan waa kaarhkii kaleer waxaanay ogaanayaan inay xaafadooda degan tahay jiim waxa uu sheegayaa inuu maamulada dabagala saan iyada kuuga shakin kadib dhoog ayaa ku odhanaya hawshan anaa qabanay oo inad igu di waxaan u jeednaa dhoog iyo jiim oo magaalada kusoo wareegaya iyagoona siinaya raggii lacagtii hubkaiyo gawaadhida ay ka qaateen lacagtoodii waxaana ay wasiinayaan nin walba kadibna waxay cabayaan khamro badan subaxii xigtii waxaanu arkaynaa dhoog iyo kaleer oo ku wada kulmaya duwabiilaa islamarkaa marka ay ku wada kulmaan waa israacayaan waxaanay cabayaan khamri kadib xidhiidh ayaa ay bilaabayaan inay wada sameeyaan dhoog iyo kaleer islamarkaa dhoog waxa uu sheegaya inuu ka shaqeeyo shirkad dhisme aabihiina in aanu joogin magaalada islamarkaana dhoog waxa ku qaadaya doon waxaanu ku odhanaya saaxiibka ayaa iskala doonteen islamarkaa waxaan u jeednaa dhoog oo jiimkule kaleer gacanta ayaa nugaya dhanka kale taliya aadam waxa uu helay xoog aadam waxa uu odhanaya tuugadu aad iyo aad ayay u taqaana wadista baabuurada waaweyn waxaa loo tegay shirkadda fikra waxaana baadhaysa FBI-da waxayna u jeednaa dhoog iyo kaleer oo xidhiidhkoodu sii ballaadhay islamarkaa kaleer waxay ku odhanaysaa dhoog waxaan u shaqeeyaa FBI-da dhoogna waxa uu iska dhigaan inaan arrinta dan kale marka waxa uu sheeganayaa tuugii aragtay waxaana ku odhanaysaa tuugay arkay waxaana ku odhanaya waa inaad qarsaa ilaa aad khatar kala kulmayso waxaanay odhanaysaa kadibna dhoog waxa uu sheegaa inay hooyadii dhimatay isagoo lex jira iyaduna waxay ugu caawanaysaa niman budhacada waxaanay ku odhanaysaa dhexda ay soo kaxaysanaya raggiina waa uu laynaya iyagoo mid walba feedhaha ka tumay kadib maaska ayaa uu iska saaraya waana u tii wejigiisa kadib waxaan u jeednaa taliya aadam uu helay xogka mid ka mid a waxa uu tegay FBI maalintii xigtay waxaan u jeednaa dhoog iyo kaleer oo wada kulmay islamarkaana waxay ku wada kulmayaan meel kadibna kaleer ayaa waxay u kacaysaa suuliga waana baxaysa waxaana imanay jiim waanu soo fadhiisanaya waxaanu iska dhigayaa midaan ogeyn xidhiidhka iyo waxaan kadib waa u imanaysaa kadib waa ustaada raacinaya waxaana odhanaya ii waran maxaadaysa kadib waa salaamaya waanay soo fadhiis jiim waa ku qaylinaya waxaanu ka warhaya ilaa xidhiidhkan ka dhexeeya waana waxaan ku dhahay khatar ayaad ku tahay kadib dhoog waxa uu imanaya saldhig waxaanu garaacanayaa bii waana u salaamaya waxaanu ku odhanaya waa maxay sababta aad u raadin weydaa hooyadii maalintii xigtay waxaanu u jeednaa ay nadiifiyaan gurigoodii islamarkaana waxay sii dabagelayaan baabuurkii lacagta siday waxaan u jeednaa saaxiibayaal gaadhigu markuu hal mar soo istaago kadib gaadhigu waa ay dhacayaan waxaanay ka yaacayaan hareeraha kadibna gaadhigu ay qabsanayaan waanay boobayaan kadibna waa ay baxsanayaan buundada dhinaca kale ayay maalintii taliya aadam waxa uu soo xidhayaa dhoog iyo saaxiibadii waxaana uu ku waaya wax cadayna kadib waxa uu la soconayaa arrinta kaleer iyo dhoog ka dhaxaysa dhoog ayaa u yimaaday saaxiibadii kaleer waxaana uu siinayaa silsilad dahaba waxaana uu ku qancinayaa inay isaga ka fogaato kadib waa ay ku raacaysaa waana ay ka fogaanaysaa waxaan u jeednaa taliya aadam uu yimaaday guriga kaleer si uu baaritaan u sameeyo waxaana uu ka helayaa silsiladii dhayma waxa uu sheegaya dhoog inuu yahay tuug weyn maalin dhowna lasoo xidhi doono kadib dhoog waxa uu tagayaa nin lagu magacaabo fareeg oo aabihi saaxiiba inuu tuug weyn ahaa waxaana uu ku odhanaya waanu iska daynayaa tuugnimada kadib waa xanaaq waxaan ku waan ku dilayaa kadib dhoog waa xanaaqaya waanu iska soo baxaya waxaanu imanaya guriga saaxiibadii kadib waxa uu ku odhanaya iga raanlo kadib waa ay diidaysaa waxaanu u go'aansanayaa dhoog inuu markaa sameeyo dhaciisii ugu dambeeyey waxaan u jeednaa dhoog iyo saaxiibadii oo sameynaya taatikadii ama qorshihii ay ku geli lahaayeen bangiga kuna dhici lahaayeen kale FBI waxay isku daysaa in saaxiibadii kariis wareystaan kadib waxay siinaysaa qorshihii oo dhan subaxii xigtay dhoog iyo saaxiibadii waxay bilaabaan qorshaha jiim iyo dhoogna waxay ku labistaan dharka askarta isla markaa lacagtii bangiga ayaa urursanaya iyagoo wada dhacay kadib markii lacagtii wada urursan laxab askarta ayaa xabada ku furan ayaa dhaawacma dhansna waa la toogtaa dhoogna waa uu ka baxsadaa isla markaa saaxiibkii waa isdilayaa xaggii laga qaban lahaa kadib marka uu isdilo dhoog waxa
u imanaya French waxaana ku oranaya waanu tooganaya lacagtii ayaa u diraya Claire Creel waxay ku hagaajinaysaa garoonka barafka oo ahayd xasuusta hooyada Dawn. Filimkan intaas ayuu ku egsaxay.